Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya ayaa waxa uu gaaray magaalada Lalibela oo maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya. Sababta ka dambaysa ayaa daawan doontaan saaxiibayaal. Waxaa sidoo kale barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan. OLF ayaa dowladda dhexe ku eedeysay xasuuq shacab inay ka geysteen koonfurta ismaamulka Oromada. xasuuqaasisa maxaa ka dambeeya waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal. waxaa sidoo kale barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan haddii eebbaweyne laga helo saaxiibayaal. intaynu ku guda jirnana aad maqli doontaan dagaallo ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka socdaan gobolka Waalo ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. faahfaahinno ayaa dagaaladaasi ka soo baxaya. halkee la kala marayaa waqtigan waan idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal. dowladda federaalka magaalooyinkii ay qabsatay maalinnimadii shalay ahayd ma waxbaa ka nusqaamay mise waxbaa ugu kordhay waan idinla wadaagi doonaa. qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo kordho intaan barnaamij wareedkeena ku guda jirna ayaa daawan doontaa saaxiibayaal. intaanan muuqaalka u guda gelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, sii share garayso si muuqaalada halkan aan soo gelino ay u gaaraan asxaabtaada kale. sidoo kale channelka wararka TV subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan macluumaadka ku saabsan dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya iyo xiisadaha ka taagan oo mar waliba halkaasi ay aad u kacsan yihiin xiisadaheeda. aynu ku bilownay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa gaaray magaalada Lalibela ee markaa dalkaasi Itoobiya. magaaladan oo ah magaalo taariikhi ah ayuu gaaray. Demeke Mekonnen oo ah markaa ninka ra'iisul wasaare ku-xigeenka ah ee dalkaasi Itoobiya sidoo kalena ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya. maalin uun kadib markii ay ciidamada ay qabsadeen magaalada Lalibela ee ah magaalo taariikhi ah ayuu ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Itoobiya gaaray iyadoo halkaasi ay ciidamada saraakiisha dowladda federaalka ah kuwooda ugu sarsareeya ay ugu soo dhaweeyeen. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa la sheegay in uu dhiirigelin ugu tagay ciidamada dowladda federaalka iyo inuu sii dardargeliyo howlaha ballaaran ay ka wadaan gobolka iyo gebi ahaanba deegaanada ay waqtigan dowladda federaalka ciidamadeedu ay gacanta ku dhigeen. qaar ka tirsan kooxaha mucaaradka ah ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay markaa gacantooda ay ugu soo celinayaan magaaladaasi. ra'iisul wasaare ku-xigeenka gaaritaankiisa maanta uu gaaray magaalada Lalibela ayaa lagu macneeyay mid lagu muujinayo dhiirigelinta dowladda federaalka. mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ay la garab taagan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo isagu ka maqan dalka ayaa waxa uu ku sugan yahay dalkaasi Turkiga si uu uga qayb galo shirka weyn ee u dhexeeya dowladda Turkiga iyo sidoo kale dowladaha dalka ama dalalka Afrika ee gebi ahaanba markaa ku midoobay midowda Afrika sidii loo horumari lahaa ayaana looga waramayaa kulankaasi. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in ra'iisul wasaaruhu xagga uu gacan saar ka weydiisanayo ra'iisul wasaaraha ama aan idhaahday madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan si uu uga caawiyana aad markaa ugala hadlaya sidii ay uga garab sii lahaayeen wadamada kale ee Afrika ku bahoobay oo sidoo kale qaarkood ama inta badanba ay ku sugan yihiin dalkaasi Turkiga oo ay kaga qayb galayaan shirka lagu horumarinayo Afrika iyo ganacsigeeda intaba. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ciidamada ku gubaabiyay sidii ay u dardargelin lahaayeen dadaalada lagu doonayo in ciidamada dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya ay kula wareegaan magaalooyin hor leh oo waqtigan ka maqan gacanta dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya. waxaa sidoo kale jira in ra'iisul wasaare ku-xigeenku uu halkaasi kusii sugnaan doono ilaa iyo maalmo dhowr ah si uu ugu dhiirigeliyo ciidamada dowladda federaalka ee dagaal ka ba'an kula jira kooxaha mucaaradka ah. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa bedeli doona bedelka ra'iisul wasaaraha oo isagu ka maqan dalka si uu u dhiirigeliyana ciidamada oo halkaasi ugu sii sugnaan doonaa muddo maalmo ah. waxaa jira sidoo kale qorshayaal ay ku doonayaan ciidamada mucaaradka ah inay kusoo rogaal celiyaan si ay qalqal u geliyaan amaba uu khatar u galo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo halkaasi ku sugan
sidoo kalena waxaa jira in ay abaabul aad u ballaaran ay wadaan ciidamadii jabhadaha hubeysnaa ee lagala wareegay magaaladaasi taariikhiga ah. waxaa jira ciidamadii dowladda federaalka inay isku fidiyeen dhammaan goobaha iyo deegaanada ka agdhowna ay u dhaqaaqeen sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeenna ay ugu huleeleen deegaanada. waxaana jira dadaalo markaa lagu doonayo in lagu adkeeyo gacan ku haynta magaalada Lalibela oo ay dowladda federaalka ciidamadeeda ay ku adkeeyaan. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaan weli ka hadlin, waxaase markaa aysan saxaafaddu soo gudbin hadallada uu ka jeediyay halkaasi. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ila lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in uu ka hadlay oo markaa halkaasi uu ka jeediyey isla markaana dhiirigelin iyo bogaadin ugu diray ciidamada dowladda federaalka lana markaa eli doono hadalkii uu halkaasi ka jeediyey. markana kooxda OLF ayaa waxa ay eedeyn dusha kala dhacday ciidamada dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya oo ay ku sheegtay in ay xasuuq u geysteen dad shacab oo ku dhaqna magaalada Nakamte ee markaa dhacda koonfurta gobolka ismaamulka Oromada. OLF ayaa si adag u cambaareysay dil loo geystay dhalinyaro ay sheegeen in lagu dilay Nakamte iyo sidoo kale aaga kale oo ka tirsan gobolka Oromada. waxaa la sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay xasuuq ba'an u geysteen ciidamadaasi isla markaana ay halkaasi ku nafwaayeen dhalinyaro aad u tiro badan oo markaa mustaqbal kala duwan lahaa. waxaa ka dhaca dalka Itoobiya caqabado waaweyn oo la xiriira dhanka nabadgelyada, waxaana jira in deegaanada ay gacanta ku dhigayaan dhinacyada iska soo horjeeda oo dhinacba dhinaca kale uu ku tuurtuuro si markaa eedeyn ahna ugu eedeeyo in shacab ay xasuuqeen. balse waxaa haatan lagu eedeeyay xasuuqani dowladda federaalka ciidamadeedu inay ka dambeeyaan. ciidamada TPLF ayaa horaantii bishan waxaa lagu eedeeyay in ay xasuuq u geysteen dad markaa ku sugnaa magaalada Kombolsho oo ay gacanta ku hayeen in muddo isla markaana dowladda federaalka ay kaga guuleysteen dagaal aan markaa dhiig badan ku daadan ay uga qabsadeen magaalada Kombolsho oo dhacda gobolka Amxaarada. haatan waxaa markaa ay ciidamada dowladda federaalka ay OLF ku eedeysay inay xasuuqaani ay dad shacab u geysteen. waxaase jirin ila ka madax banaan oo xaqiijinaya in ciidamada dowladda federaalka ay xasuuqaani geysteen. waxaase wax walba ay ka suurtoobaan dalka Itoobiya oo inta aad ku sugan tahay oo markaa ay wax walba ka dhici karaan, sidaasina markaa ay suurtagal ku tahay in ciidamada ay dowladda federaalka ay u geysteen xasuuqaasi dadkaasi shacabka dagaalo ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Waalow saacadii la soo dhaafay. dagaalada ayaa ahaa kuwa markaa aan sidaa u buurnayn oo dhinacyadu ay isweydaarsanayeen xabado teel iyo sidoo kale dagaalo aan sidaa u buurnayn oo deegaano yaryar oo gobolka Waalow dhaca ay isku weydaarsadeen dhinacyada iska soo horjeeda. khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaaladaasi lama soo sheegin, balse wararka ayaa sheegaya inay isdiyaarinayaan dhinacyada iska soo horjeeda dagaalo cusubna ay isku diyaarinayaan, gaar ahaan kuwa dowladda federaalka ka soo horjeeda ee mucaaradka oo iyagu ciil ba'an qaba maadaama deegaano badan lagala wareegay. guud ahaan saaxiibayaal barnaamij shureedkani waa inaga intaa.